السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan halkan waxaan ka salaamaya ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaam waxaynu ka hadlaynaa maanta arrinkan la leeyahay waxaa la horkeenay baarlamaanka Soomaaliya oo ay horkeentay ka hadlaysay gabadha la yiraahdo Sacdiya Firimbi oo horena aynu soo aragnay dhaqankeeda iyo dhaqan xumadeeda iyo diradeeda. Firimbigaas oo ahaa kii ay ku yeerin jirtay sirig baarlamaanka ku yeerin jirtay dowladii hore. marka iminka iyadoo baarlamaanka Soomaaliya ka gudoomiye ku-xigeen baarlamaankuna laftigooda ay yihiin kuwii doortay oo shacabka u tumeeyay berigii ayna ogeyn maxay ahayd yaka inoo keenay oo doortay oo shacabka u tumeeyay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenkaba. marka waa nasiib darro maanta in dhaqankaas oo kale la hor keeno baarlamaanka haddii ay yihiin baarlamaan hagaagsan waxaa la rabaa inay tallaabo ka qaadaan markaba oo baarlamaanka lagu kala kaco lagu kala cararo inay dhegeystaan waxaasoo kale hor fadhiistaan ma baahayn fadhigaba inay ka kacan bahdo albaabka ka booda. dadka noocaas oo kale markay ka hor hadlayaan oo diinta islaamka kasoo xadgudubka weyn ku xadgudbaya dadka diinta islaamiyed ku xadgudbaya waxyaabahaas oo kale kaga hor sheekeynaya inay hor fadhiistaan ma maaha. waxay maqlayeen lacag bay kusoo qaateen qandaras baa lagu soo qaatay arrinkaas iyadoo la sheegay qaar badan oo ka mid yahay gudoomiyaha baarlamaanka ninkaas oo inta badan laga sheego xumaan wax wanaagaba iyadoo laga sheegay ma maqlin. marka kooxaas waa koox wada socota waxaan leeyahay maxay ahayd tallaabo laga qaado dadka noocaas oo kale waxay marka la qabto la xidho diinta islaamka inay ku xadgudbaan dadka lacagta kusoo qaatay dee in dadka laga qabta wey dadkan dad islaameed weeyaan wadan dad muslina islaameed dad muslima weeyaan maaha wadamada gaalada. waxaan maqlay iyada oo leh muqdisho waa ka tegay haddaan xeerka la ansixin muqdisho ka tag maaha Soomaaliya dhan ka tagada doonto halkaad ka timi ku noqo loogama baahna dadkan in dadka laga lumiyo dariiqa islaamka wadada islaamka laga lumiyo iyo diinta islaamka waxyaaba aad xadgudub ugu ah diinta islaamka la hor keeno oo lagaga sheekeeyo dadka islaamiyed hortooda. waxaan leenahay maxay ahayd tallaabo laga qaado. midda kale aan ka hadlaya waxa weeyaan Kenya la waxay joojisay baasaboorka Soomaaliya. Kenya maxaa dhacay baan leeyahay dadka kore jiray walaalaha ayaa waddanka haystay marka xasan sheekh iyo Soomaaliya ku lahaa walaalaha iyo Kenya hadaa walaalahayda maxay ku dhacay maxay walaashin sida idinku gashay xasan sheekhow waa wax la yaabo runtii casharna waa wax ku filan kii aad ka hiilinaysa inuu idinka difaacayo baa walaalkiin ahaa walaalnihiina furo sibax maxaa arka waxaad wax ku qaadataan sida maanta waa idinka sheekeynaya xadgudubyada waaweyn oo ka socda meesha markii wadada saxa la tusay runta ay dhinacii ka leexatay wada tiraan walaalaha ayaa laga leexay waad walaalkiin ka soo horjeesateen walaalkiin idin hiilinayay markaa ka soo horjeesateen abaalkiin weysa in laydin kala. marka waxaan leeyahay maxay dadka tallaabaha laga qaado dadka diinta islaamka ku xadgudbaya oo weliba dadka islaamka oo ka dhiriyay u hanjabaya. intaasaan kusoo koobayaa maanta. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sheer gareeya subscribe-kana igu raanada i saara subscribe ummadda hagaagsan baan la hadlayaa subscribe i saara.